نور أدياي قات جوغا أنا ما كبهاي قرير وبالي موي شيخ نور ننكي حمينا يو شيخ نور ننكي حمينا يا وبالي موي هلي حرحاسد إيواي هلي حرحاسد إيواي شيخ نور ننكي حمينا وبالي موي شيخ نور ننكي حمينا شيخ نور ننكي حمينا وبالي موي هلي حرحاسد إيواي هلي حرحاسد إيواي محمد أحمد هدنا مرلوات قبلها ومسؤولين تأه هبانك الصومالي وحكوهر عدينا إن أنا وحبكو قبل هدان دنتو هدي إيجو قعدو إيه هدي هدوها إيجو قعدو نفط ميل ومشيو هدي همانستو إلهي وكاقات كرادو همانستو ولا كاقادا رقوية وحبكو مقولا شيء مالنتان وحيك باللابدو جمعة وحنا أكو قبل مجرتو قبله أو حبي هاين iyo mar labaad afeefada aan ka wado waxay tahay gabdhihii dadka aan jireen way maanta aan nabadaan qaaday waa isla qaadnay istaaga kulligiin inaad nabad qaadeen cadeeya dhaqanka iskugu jira nooc walba haday ugaasyo tahay haday nabadoono tahay aqoon-yahaniinta gabdhaha nabadda degmada Kismaayo ee dalada ah madaxa hay'adda SWSO Xaliimo Godane dhamaantiin ka soo qaybgalayaasha sida u kala fadhiyaan baa idin salaamaya salaanta islaamka idin ku salaamaya salaanka bacdi barnaamijkan maanta aan u fadhino wuxuu soo bilaabmay 22kii bishii shanaad 2016 waxaa la bilaabay in la sameeyo gabdha ka shaqeeya nabadda ayaa tababaro loo furay gabdhahaasi waxay ka koobnaayeen 180 gabdhood oo gabdho Soomaaliyeed ah oo gabdhihii degmada Kismaayo oo nooc walba leh ayay ka koobnaayeen gabdhahaasi waxaa loo furay tababar in ay ka shaqeeyaan nabadda degmada Kismaayo sida aan ognahay waxaan nabadeen loo sameyn jiray waxa u badnaa rag dumarkase way ku yaraayeen laakiin hadda waxaanu la gartay in la sameeyo gabdho ka kooban gabdho kaliya oo nabadda la baray si ay uga qayb qaataan oo oola jaan qaadaan nabadoonnada iyo ugaasyada iyo suldaanada ka shaqeeya nabadda si ay u gacan qabtaan ee gogosha ugu dhigaan ee u soo dhaweeyaan seenbari markii nabad la sameynayo waxaa gogosha dhiga oo ka shaqeeya waa haween ragana gogoshu soo galaa taas ayaa la gartay in laga sameeyo loo sameeyo in maaragtay gabdhahan la tababaro waxay ka koobnaayeen gabdhahaasi 180 gabdhood haddana guddi baa laga saaray guddigaasi wuxuu noqday 30 iyo maxay ahayd 9 gabdhood hadda halkaan ku fadhiyaan oo guddi kooban ah markaas ka bacdi waxaa la sameeyay waxaa loo sameeyay doorasho waxaa la siiyay waxaa loo sameeyay gudoomiye ku xigeen afhayeen iyo xoghayn maantana waxaan u fadhinaa sidii aan maaragtay u shaacin lahayn oo u ogaan lahaydeen in ay jiraan gabdho nabadda ka shaqeeya oo u taagan degmada Kismaayo waxaa kaloo jira gabdhahaani markii la tababaray waxay qaateen nabadda waxay soo saareen baaq nabadeed waxay soo saareen qodobo ay ku heshiiyeen oo baaq ah oo fadhigii hore halkaan aan ka jeedinay ayay soo saareen waxay gabdhahan isku dhaarsadeen kitaabka quraanka ah inay nabadda ka shaqeeyaan in aysan wax kasta oo colaad ah oo ka jira degmadan Kismaayo in ay ka hortagaan ayay go'aan ku qaateen بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحليمو فارح قدنا وحان مزول كاي أدن برنامج كسو ودي SWSO كسب صبلو ماي 2016 كي إلا عفتنا ودي ومعناها ما أنت وياهي قبديسي ومعناها
annaga hay-ad ahaan waxaan maaragtay 2016 bilowgiisii isku taxluujinay maadaama aan nahay dad bulshada ku dhex jiro inaan haweenka tayeyno barnaamijkan waxaa la dhahaa tayeynta iyo ka qayb qaadashada nabadda haweenka Kismaayo la dhahaa si marka loo tayeeyo waa in ayaga laga bixiyo madmadowga ayaga dhexdooda ku jiro waa in laga bixiyo si ay iyaga oo hal ah oo midaysan oo beelaha dhan ee degmada Kismaayo ay ka muuqdaan oo gabdhahoodii oo midaysan oo gacmaha isqabsado iswada sameyn xiray si ay uga qayb qaataan nabadda deegaanka Jubbaland si ay uga qayb qaataan waa in ayaga la turxaan bixiyo ayaga la taroomo bixiyo ayaga la tiiraanyo bixiyo barnaamijkan wuxuu ku saleysnaa inaan heshiisiinay ilaa 180 haween ah oo 30 walbaba ay qabiil ka socoto inaan heshiisiinay muxuu ahaayay waxaa naga gacan siisay hay-adda Life and Peace Institute LBI marka la soo gaabiyo la yiraahdo قيا برواقدا نمعلا وقبوبا التناسر مانو لغا جاب النفقادا نحاريست إيباي ميدانا أروني نطيدا كجحرو رجاء النسخامين وقنا وليسي نبضي نعاني نعودوني نبضي نعاني نعودوني نقايا برواقدا نمعلا وقبوباي التناسر مانو لغا جاب النفقاداي نحاريست إيباي ميدانا أروني نفتيدا كجحلو رجاء النسخامي وقنا وليسي بريد إلهيو كما نوغ دعالي بريد إلهيو كما نوغ دعالي نبضي معاني نعودوني نبضي معاني نعودوني قيا برواقدا نمعلا وقبوباي التناسر مانو لغا جاب النفقاداي نحاريست إيباي ميدانا أروني نفتيدا كجحلو رجاء النسخامي manaana dhici jirin baa iri inay gabdhuhu inta idin soo hor istaagaan ay wax idin sheegaan laakiin xanuun baa nagu dhacay xanuunku nagu dhacay wuxuu noqday wiilkii dhimanay anaa dhalay ninkii dhimanay aniga maxay ahayday u iqaba aabihii anuu iga dhimanaya walaalkay waa dhimanaya abtigay waa dhimanaya waxaan ka jabay dhabarkii maadaama dhabar jab aan arkay xanuunkii wuxuu i gaarsiiyay inaan ta soo baxo odayaasha dhaqanka la hadlo meel walba oo ay isleeyahay wax baa lagu xallin karaa inaan hor istaago oo iraado nabadda aan raadino nabadda aan ka shaqeyno waxyaabaha aan arkeenno yanaanan arkin dhibka la daayo kan inaan dhahno arrintaas way arrinta hadda aan ka hadlayay waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego waxaa jira anagu islaam baan soo ma islaamnimadu waxay ka bilaabataa laab xaarasho qofka islaamka ah ee sifeeya laabtiisa xaaro oo laabtiisa dhaqo oo iska ilaaliyo in uu uqdad ay ku baridcaaw wuxuu ku
dhaqmay wuxuu ku hadlay kan kalena uu yiraahdo tol beelay maanigoo kan ahaa kan caawa dhan calooshaada hadaa gadgadis ma seexanaysid waxaa la hubaa korku inuu ku hurayo waxaa la hubaa in aad seexanaynin hurdana kaa imaanaynin waxaa la hubaa inuu kugu dhacayo cudurro aanan dadka kale ku dhicin waa uqdad marka waxaa la rabaa haddii aad rabtid inaad fiyoobaatid ood calooshaada saafiyeysid war lagu khasaari ma aha annaga waxaan idhaahnaa haweenka waxaan idhaahnaa bilcaanaan idhaahnaa warkaan war bilcaameed waan dhihi jirnay hadda maanta waxaan aragnay bilcaan oo ragga ka fiican bilcaan ragga ka fiican aan aragnay waxaa la yidhi waxaad mataqaanaa aad garatay oodan samayna waxay lamid tahay waxaadan garanayn hadda raggii labadii geesoo dhahay waxaysan ku fikirin baad adinka keenteen ilaahay khayr ha ida siiya waxaadna ku fiicantihi dad wada aftahanno ah la soo xulay mutacalimiin ah aqoon leh maskax fiican leh qofka ma ogtahay xoolaha kuwa oo tood ahaa jira toojiyaa la yidhaahdaa caanaha qof kasta kama lisi kara oo hataa qof caraysan qaboojin kara ayaa idinka buuxo marka caradii iyo dadkii xoogoo qabay hadalkaagii iyo gabadhaan iyo gabadhii haddii halkaan taagneed dadkii hadda waa iska goldadeen waxay leeyihin mataqaanaa waxaa ka soo dhow adinku na go'aamiya ka soo dhow khayr allah idin siiya farxad weyn ii ah in aanu si buuxda uga soo qayb galnay abaabulkeedii iyo maxay ahayday qabashadeedii maalinta 21 Sebtembar kaasoo ku aadanaa maalinta nabadda adduunka loo asteeyay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta ay ka soo qayb qaateen ilaa 200 oo haween ah oo ku labisan dharkii caddaa ee nabadda taas waxay ku tusaysaa sida haweenku ay u jecel yihiin nabadda annaga haddaan nahay SWSO mar walba waxaanu u taagannahay in ay Soomaaliya nabad noqoto oo visionka annaga uu yahay in Soomaaliya ay nabad noqoto in dawlad buuxda aan helno in maxay ahayday laga qayb qaato nabadda deegaanka sidaa darteed waxaan boorinayaa sida maanta dhacday oo kale toole ee haweenka uga qayb qaateen maalinta nabadda inay uga qayb qaataan qabashadeeda run ahaantii magaalada Kismaayo waa magaalo ay ka dhisan tahay platform ama dallad aan ka sameynay ka shaqaysan nabadda waxay astaan u tahay in nabaddu ay ka bilaabato qoyska gurigana ay aasaas u tahay hooyadu waa geed har weyn waxaa isugu yimaada wiilkii gabadhii odaygii dumaashigii sodohdii wixii oo dhan baa iskugu yimaada bulshadiiba iyadu waxay u tahay saldhig iyo aasaas u tahay sidaa darteed waxaan hooyooyinka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay dhammaantood iyo gabdhaha Soomaaliyeedba inay nabadda ka qayb qaataan iyo barwaaqada nimca lagu qabooba itanaasir maano laga jabo nafaqada naxariista eebay niyadana u roone naftayda ku jecelo raja aan nusqaamayn kugu naawilaysi معاني نعودوني نبضي معاني نعودوني نقايا
barwaaqadan allagu qaboobay itanaasir maano laga jaqo nafaqaday naxariista eebay niyadana u rooney naftayda ku jecelo raja aan nusqaamay heer degmo ilaa heer gobol madaxda hay'adda SWSO ururka nabadeed dalada Jubbaland haweenka Jubbaland dhalinyarada ka kala socota dhammaan laamaha kala duwan hay'adaha dhalinyarada ee Jubbaland nin walba masiirkiisa meeshuu fadhiyo ayaan ku salaamaya waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waa fursad weyn bay noo tahay in maanta la wada hadashiyo oo miiska wada hadalka la wada keena dhammaan ururada dhalinyarada ee ka jira deegaanada Jubbaland khaasatan degmada Kismaayo waxaan ogsoonahay 40 dhalinyaro inay meesha magaranaysaa lagu marti qaaday oo ka kala socda ururo dhalinyaro oo kala duwan magac kasaba oo la baxane ku soo dhawaada shirkan waa shir magaranaysaa wada hadal waxaa meesha fadhiya golihii dhalinyarada Jubbaland oo xubno ayagana ku soo darsaday wasaaradda baa fadhido waxaa fadhido ururkii haweenka dalada nabadeynta degmada Kismaayo dhammaan waxaan rabnaa ayagoo markhaati ka ah in dhalinyarada ay wada hadlaan wixii wax tabanahay la dhageysto wixii naga maqan aan ku soo darno wixii magaranaysaa yaan rabnaa wada hadalkan kuma ekaanayo maanta kaliya wuu noo soconaya ilaa xalka ugu dambeeya la gaaro insha Allah taala aad baan uga mahadnaqayaa SWSO qabanqaabada ay noo fidisay gogosha ay noo fidisay waan qiimeynaa waxaan soo diyaariyay wasaaradda iyo hay'adda SWSO inay ka soo wada shaqeeyaan in wada hadalkan dhalinyarada uu bilowdo maanta uu dhaco aad baad ugu mahadsantihiin waxaan idinka digayaa in aan magaranaysaa wax conflict keenaya aan lagu hadlin oo lagu si degan oo magaranaysaa maskaxiyan loo hadlo aad iyo aad baa u mahadsantihiin agaasimaha wasaaradda hay'adda SWSO dalada habeenka iyo dhammaan ururada kala duwan halkan ka soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta ka gadaal waxaan halkan ka akhrin doonaa ama ka dhihi doonaa codkan wada hadalkii loo qabtay dhalinyarada reer Kismaayo kuwa dawliga ah iyo kuwa madax bannaan waxaa soo qaban qaabiyay dalada habeenka nabadeynta degmada Kismaayo ayadoo gacan ku siinaysa hay'adda SWSO wuxuuna socday 3 maalmood waxaana laga wada hadlay arrimo badan oo lagu dhameynayay khilaafka dhalinyarada Kismaayo waxaana ka soo baxay go'aanada hadda hoos ku xusan aan akhrin doono insha Allah lambar 1 in dhammaan ururada dhalinyarada degmada Kismaayo ee madax bannaan iyo ururka dawliga ah ku midoobeen oo adeegida shacabka reer Jubbaland lambar 2 in dhammaan ururada madax bannaan iyo ururka dawliga ah ay si wada jir u xaliyaan khilaafka dhexdooda ah iyadoo ay la kaashanayaan wasaaradda dhalinyarada ee dowlad goboleedka Jubbaland lambar 3 ururka madax bannaan haddii ay rabaan inay la kulmaan wasaaradda dhalinyarada ee dowlad gobol iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka Jubbaland waa inay soo maraan ururka dawliga ah ee dhalinyarada Jubbaland state-ka lambar 4 dhalinyarada ka soo laabatay xeryaha qaxootiyada ee Jubbalandarka waxay la xuquuq yihiin kuwa ku sugnaa deegaanada Jubbaland lambar 5 go'aan kasta masiirka dhalinyarada Jubbaland ah oo ay gaarayaan madaxda dhalinyarada dawliga ah waa inay la tashtaan ururada madax bannaan lambar 6 in dhalinta kulankan ka soo qayb galeen ay qaateen nabad waxayna ku heshiiyeen inay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka Jubbaland
وإلهي مهدي سومالي عل بدن با soo maray ayadoo gabdhaha la kala guursanin oo la kala tag xirmay oo wiil abtigi iyo saadigi la isqalaa soo martay maanta hadii aan ka qaarad isu marti qaadayn ilaahay baa mahadaas iska leh Jubbaland guul Allah siiyo tii horumartana Allah ka dhiga dadkana qulubtiisa Allah isu dumo waana idin salaamahay dhamaantiin martida sharafta leh iyo maamulkii hore oo meesha ka sii jiray dhamaantood ilaahay daa'im weeye degma hadday nabad ahayn rag iyo dumar wada dhammaan dadkeeda u duubaneen difaaceeda u xirneen duleedkiyo ciidamada haddaan laga xirin duleedka hayada kuma soo dagaane damaashaad laguma dhiga dalxiis loomaba imaada ilaahay ha iska daaya walaal diiftiya colaada darxumo waxa nooga baay nin doorkee ina islaanay allo walaal diiftiya colaada darxumo waxa nooga baay nin door madaxweynaheena allow daayina islaan darxumo waa loo dhintaa darxumo waa loo dhintaayo isdaardaar daawo male dagaal nabad baa ka roon wax walbaba daawadooda ilaahaa soo dejiyey cirkana waxaa daawadiya inuu roob nooga daa dhulkana waxaa daawadiya inay biyo daadsayiin geedaha waxaa daawadooda inay doog leeyihiin doogana duunyada cunta dowlay waa daawadeeda anna waxaa daawaday danaha Soomaali weyni dadkayga inuu israaca deel qaaf hadal waa dilayo isdaardaar daawo male darxumo waa loo dhintaaye isdaardaar daawo male darxumo waa loo dhintaa ee walaal diiftiya colaada darxumo waxaa nooga baay nin door madaxweynaheena doolow iyo dagina maxaara ilaa daaftaa libooya xaduudkeena ku dayran dalkana Soomaali baale dadkana adiga xukuma dantooda adoogu wado darxumo adigoon ku wadin dagaal adigoon la rabin wixii kula raba dagaal maduulow ina islaan daa'inkayba arkay daacad baan ka rabnaa deel qaaf hadal waa dilay isdaardaar daawo male dagaal nabad baa ka roone hortaba dacaree hasheena darmaha maxaa loogu xiray darmaha duurka ma imaan daab iyo qoran baa la qaatay wiil baa danihii u seego barya duur loogu jiray dadkeeda inuu dhagaysta ayaa duwan loogu xiray darmaha xagaroo dikrini hortaba deegaan saceena barqada maxaa loogu diray gabaanka u diidi noqon barqada ayaa loogu diray weylaha deegaan saceena waxaa duga loogu waabay walaal aaryada dalfani dabaylahay dulaynin wixii doonay u galin dawaagtan ayay guranin dhaqaale daraadadiisa ayaa duga loogu waabay ee walaal dacarow ritiga maxaa dabar loogu yeelay waxaa dabar loogu yeelay waa dowra ayuusan dhihino ayuu dilin aarlibaax dhaqaale daraadadiisa ayaa dabar loogu xiray dadkeenaan la isu keenay waxay dulacdoodu tahay dagaalkii inuu dhammaaday dantoodiina loo heshiyey mac salaama